diiwaanka madow ee dowladda Ruushka ee Suuriya. Ruushka wuxuu ahaa saaxiibka ugu weyn maamulkii Suuriya ee la riday 8 bishii December sanadkii 2024. Ruushka cilaaqaadka iyo xiriirka uu la lahaa maamulkii la riday Suuriya Bashar al-Assad wuxuu u arkay fursad dahabi ah oo uu ku balaarin karo saameyntiisa bariga dhexe. Sidaas darteed wuxuu gudaha Suuriya ka samaystay saldhigyo militari waxayna ciidamadiisa ku yeesheen dalka Suuriya joogitaan dhammaystiran. Si kastaba xiriirka Vladimir Putin uu la lahaa Suuriya waxay keentay inuu taageero la'aan siiyo maamulkii Suuriya isagoo fiirsanaya ujeedooyinkiisa siyaasadeed. Tanina waxay keentay inuu hilmaamo wax waliba saameyn xun yeelan kara. Si kastaba taageerada indhala'aanta ee Ruushka waxay keeneen sababeyn dhibaatooyin iyo musiibooyin Ruushka u galay bogagga madow ee taariikhda. Warbixin soo baxay ka hor iyo kadib dhacitaankii maamulkii Assad ayaa faahfaahiyay dambiye ka dhan ah bini'aadantinimada si gaar ah dhimashada kumanaan shacab Suuriyaan ah qayb weyn ku lahaa Ruushka. Tanina waxay ku noqotay Ruushka fadeexo. Militariga Ruushka wuxuu qayb weyn ku lahaa howlgallada dagaal ee militariga Bashar al-Assad kala hortagay kacdoonadii gudaha ee xoogooda bilowday sanadkii 2015 isagoona Ruushka uu si toos ah u taageeray ciidamadii Bashar al-Assad si danihiisa gaarka ah ee Suuriya u gaaro u hirgeliyay Ruushka. Maamulkii Assad taageeradiisii militari ahaan kaliya kuma ekeen balse siyaasad ahaan wuxuu si aan qarsooneen fagaarayaasha caalamiga uga difaacayay taageerayay maamulkii Suuriya isagoo isticmaalaya awoodiisa veto wuxuu golaha ammaanka ka difaacayay maamulkii Assad ee Suuriya isagoona ka hortagayay tallaabooyin kastoo ka dhan ah Bashar al-Assad. Ruushka go'aamadiisii ku aadanaa maamulkii la riday ee Suuriya waxay ahayd istiraatiijiyad qaldan oo uu qaatay si uu u gaaro ujeedooyin militari iyo mid siyaasadeed. Si kastaba ujeedooyinkii Ruushka ka lahaa Syria iyo cilaaqaadkiisii Bashar al-Assad waxaa soo wajahay mawjado caqabado ah marka laga soo bilaabo sanadkii 2022 duulaankii Ruushka uu ku qaaday dalka Ukraine. waxaa isu dhac weyn uu ku yimid xiriirkii Vladimir Putin uu la lahaa madaxweynihii la riday ee Bashar al-Assad. waxay sidoo kale tana saameyn ku yeelatay maalgelintii iyo taageeradii uu ka helayay Assad Vladimir Putin. bilowgii hore ee uu Ruushka duulaan ku qaaday iyo howlgalkiisii militari ee ka dhanka ah dalka Ukraine wuxuu markale si degdeg ku joojiyay taageeradiisii Syria. Tanina waxay sababtay ciidamadii maamulkii Bashar al-Assad inay soo food saarto dhaqaale la'aan iyo agab la'aan. waxay sidoo kale tana saameyn ku yeelatay maalgelintii iyo taageeradii uu ka helayay Assad Vladimir Putin.